waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waan idin salaamay dhammaan walaalayga Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan. Allah subxaanahu wa tacaala hadduu qadaraa waxaan rabaa inaan halkii kasii anbaqaadno buuggiini saddexaad ee buugyada aan akhrino ee 4000 Essential English Words. buuggiini saddexaad maanta ilaahay hadduu qadaraa waxaan ka bilaabi doonaa cutubka 8aad ee page-ka 50aad. 10 ere ayaan qaadan doonaa. 12 ere ayaan qaadanaa. cutubkii 20 ere ka kooban yahay. 20kaas ere ayaan waxaa kala jebinay 2 cashir. 10ka cashir ay maanta ku qaadan 10ka ere cashirkan maanta aan ku qaadan doono ere ugu horeeya waxa uu yahay waa anniversary. inta badan waxa la yiraahdaa waa sanad guuro ayaa waxa la yiraahdaa anniversary. sanad guuro inta badan waxa waaye waa shay ama xus kasoo wareegatay sanad kasoo wareegatay ku beegan waliba xilliga sanadkii oo kale maanta ku beegan ayaa waxa la yiraahdaa anniversary la yiraahdaa. waxa leeyahay markaasi kaxitaanka anniversary is a day waa maalin taasoo celebrate loo dabaaldego something shay from the past ee hore u dhacay markaas ee lagu dabaaldegaa. tusaale waxa leeyahay my parents waalidiinteyda wixii aadeen out banaanka to eat wax u soconaa for their wedding anniversary meherkooda markaas ama markaas guurkooda markaas sanad guuradiisa ayay markaas banaan ku aadeen si wax u soo cunaan. macnaha waa xusayaan. ereyga xiga waa arithmetic. ereyga arithmetic waa xisaab caadi ah oo naqaanaa math. arithmetic waa la yiraahdaa. arithmetic waa erey markaas Greek ah waaye taasoo markaas Greek ah markii la yiraahdo arithmos ay tahay oo macnaheedu uu yahay markaas xisaab waaye ama math ay tahay taasoo markaa arithmetic lagu yiraahdo afarta xisaab fal isku yiraahdo oo ah markaas isu geynta kala goynta isu dhafashada iyo qaybta afartaas ayaa waxa la yiraahdaa arithmetic la isku yiraahdaa. markaas arithmetic waxa la yiraahdaa math waa xisaab la yiraahdo. salaam waxa la ilaaga waan jeclaa to study inaan barto arithmetic afarta xisaab fal at school inaan dugsiga ku barto ayaan jeclaa. erayga waxa waa ashamed macnaha waxa waaye xishood. xishooday ayaa waxa la yiraahdaa markaa ashamed. to be ashamed inaad xishootaa is to feel inaad dareentaa upset caro because sababta u dareentana ay tahay you did inaad samaysay something shay wrong qaldan or ama bad xun. salaam waxa leeyahay markaas he was ashamed wuu xishooday when markaas he found out markuu ka warhelay dad markaas I knew inaan ogaaday about his past wax si ku saabsan oo hore inaan wax ka ogaaday markuu maqlay markaas ma ogaaday waa xishooday leeyahay. ereyga xiga waxa waa barst waxa waaye markaas qarxid ay waxa la yiraahdaa barst. to barst qarxidu is to suddenly break waa in markaas si durba ah oo ku bilaabma ama break open oo ku qarxa ama ku bilaabno apart qayb shaygii kamid ah inuu ku bilaabmo. salaam waxa leeyahay bamka barst uu qarxay over the city magaalada ayuu ku qarxay ee markaas. ereyga xiga waxa waa carpenter waa faryaamo dadka faryaamada ah ee guryaha inoo dhiso ayaa la yiraahdaa carpenter faryaamo is a person waa qof kaasoo builds dhisa things waxyaabo dhisa waxayna ka dhisaan wood alwax ay ka dhisaan. we hired wuxuu yiri waxaan shaqo gelinay a carpenter faryaamo to make so u sameeyo a cupboard armaajo so u sameeyo. ereyga xiga waxa waaye cool waa dhuxo inta badan dhuxusha laga qodo markaas dhulka ayaa waxa la yiraahdaa cool ee la yiraahdo. cool waxa leeyahay is hard black rock waa dhagax adag markaasi ayaa leeyahay oo madow taasoo you burn at gubta or ama heat isu kululaysa ay leeyahay. many people dad badan many power stations ayaa leeyahay markaasi meelaha lagu iibiyo markaasi powerka ama shidaalkii lagu iibiyo burn waxay markaas gubaan cool dhagaxaantaas ay gubaan ama markaas dhuxushaas to produce u soo saaran energy ay leeyahay. couch ay leeyahay waa markaas fadhi waay fadhiga geedka la yiraahdo ee markaas ama lagu fadhiisto saddexda qof afarta qof labada qof qaado oo caadiyan lagu fadhiisto ayaa waxa la yiraahdaa couch la yiraahdo. couch waxa leeyahay is a long waa shay dheer soft jilcan seat markaas fadhi taasoo many people dadka can sit on it ay ku fariisan karaan ay leeyahay. Kim and Meredith labada qof kala yiraahdo waxa la yiri Meredith new coach
labadaasi qof markaasi fadhigooda cusub was very expensive aad ayuu qaali u yahay drip waxa waa markaasi tifqid waa drip waa tifqid daadasho ma aha drop waa daadasho laakiin drip tan waa xawaay tifqid waa biyo ama dareer in hal oo soo tiftifqo drip liirada when a liquid markii dareeraha drips oo soo tifqa just waxa la yiri markaasi little bit wax yar ayaa fail ka soo dhac at a time waqti walba wax yar ay ka soo dhac sare waxa la ahayd waxa maqlay water biyo dripping ka soo dhifqaay from the faucet furaha markaasi tubada biyo ka soo tibqaay ayaan markaasi maqlay yiri ereygan markaasi xiga waxa la yiraahdaa waa intelligent ereyga intelligent macna ahaan markaan u fiirino waxa waaye markaasi waa xarago sensing markii shay is u yahay intelligent xarago is a very fancy waa shay markaasi qiyaali ah ama unpleasing mise markaasi lagu farxo tusaale waxa la markaasi in Japan women dumarka waxay xirtaan intelligent commandos ay xirtaan dharka la yiraahdo commandos oo markaasi xaragada ay xirtaan special occasion munaasabaha khaaska ay xirtaan markaasi ereyga xiga waxa uu yahay markaasi waa fabric waxa waaye markaasi maro waay fabric waa maro inta badan dharka aynu gashanahay dharka aynu gashanahay marooyinka laga sameeyo waxa la yiraahdaa fabric la yiraahdaa fabric wax leeyahay cloth waa dhar use loo isticmaalo to make lagu sameeyo cloth dharka furniture qalabka guryaha etc waxyaalaha mid tusaale waxa la markaa the towel shukumaanadu were made from waxa laga sameeyaa asabti fabric ay leeyahay marooyin markaasi jilcaan laga sameeyaa maanta 10 halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna السلام عليكم ورحمة الله تعالى